Waxaan maanta muuqaalkeena ku eegaynaa 100-ka qof ee ugu saameynta badan adduunka. Buuggan waxaa qoray qoraal lagu magacaabo Mitchell Hart oo ah qoraa u dhashay waddanka Mareykanka. Abulqaasim Moxamed ibn Cabdullah ibn Cabdilmudallib ku dhashay magaalada Maka, Xijaaz, dhulka Carabta, maantana loo yaqaan Sacuudi Carabiya. Wuxuu dhashay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee bishii Rabiicul Awwal, sanadkaasoo dadka Carabta ay u yaqaaneen sanadkii maroodiga. Waxaana dhintay 8 Juun 632. Waa rasuulkii Eebbe u soo diray dadkoo idil, jin iyo insiba. Waxaa loo diray inuu dib ugu soo celiyo dhulka rumaynta Eebbe keliya. Waxaan ogahay inaanan dhammaystirin taariikhda uu lahaa Nabiyullaahi Moxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaato, anigoo maanka ku haya inuusan jirin qof muslima oo waxba ka aqoon waxa uu ahaa Nebi Moxamed sallallahu calayhi wasallam. Isaac Newton wuxuu dhashay 25 Diseembar 1642, wuxuuna dhintay 20 Maarso 1726. Waxa uu ahaa xisaabiye, saynisyahan, qoraa, filosofi u dhashay waddanka Ingiriiska, oo si weyn loogu aqoonsan yahay inuu yahay mid ka mid ah saynisyahanada ugu saameynta badan abid iyo qof muhiim u ah kacanka sayniska. Buuggiisa la magac baxay Mabaadi'da Xisaabta iyo Falsafadda Dabiiciga ah oo markii ugu horeysay la daabacay 1687 ayaa aasaasay aaladda farsamada gacanta Newton. Sidoo kale wuxuu ku tabarucay aqoon-yahano kale isweydaarsi xagga aragtida ah. Almasiix Ciise ibnu Maryam, oo sidoo kale loo yaqaan Cibraaniga ama Jesus, waa rasuulka Eebbe iyo Masiixa ee Islaamka. Waxaa loo arkaa inuu ka mid yahay kuwa ugu horeeya ee xerta rasuullada. Waxaa loo diray inuu ku hogaamiyo reer bani Israa'iil kitaab cusub oo barakaysan oo ah Injiilka. Muslimiintuna waxay door bideen inay ku daraan weedha ah nabadgelyo korkiisa ha ahaato marka ay maqlaan magaciisa iyo dhammaan nebiyada iyo rasuullada ka yimid xagga Eebbe. Waa mid ka mid ah tiirarka iimaanka, isla markaana qofka Islaamka ah islaamnimadiisu sax ma noqonayso hadduusan rumaysanayn Ciise inuu yahay rasuul ka yimid xagga Alle. Nabiyullaahi Ciise calayhi salaam ayaa lagu sheegay magaciisa Qur'aanka 25 jeer. Sida uu Qur'aanku sheegayo, Ciise calayhi salaam uu nool yahay, ma uusan dhiman ilaa iyo hadda. Sidoo kale Yahuuddu ma aysan dilin, laakiin wuxuu Eebbe ku karyeelay xagga jannada. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. waxa uu dhashay markay taariikhdu ahayd 483, waxaana dhintay goorta ay taariikhdu ahayd 563. waxa uu ku noolaa halka maanta loo yaqaano Nepal ilaa bartamaha Hindiya, waana aasaasaha diimaha laga haysto Hindiya iyo Nepal. waxa uu dhashay markay taariikhdu ahayd 479, waxaana dhintay 551. waxa uu ahaa filosofi iyo siyaasi u dhashay waddanka Shiinaha.